بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومالي صوبان أو صوبان أو هدنا سحن أو إسنينا سيدي لباتنك بيش صدحات لبدا كون إيا لبدا لباتنك أو كسنتان دا فريدا إيا دبولك قاددا إيا حركة جركا إسلام مركانا وحوي فريتانكا بختركا وين قربتدر waxaa maanta magaalada Garbadadar soo gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye wafdigan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xildhibaan Jimcaali Axmed Cilmi isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal barsaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo xubno kale ujeedka waftigan soo gaadhay maanta magaalada Garbadadar oo daarana furista ama xarika jarka cusbitaalka guud ee degmada Garbadadar ayaa waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay guud ahaan qaybaha bulshada shacabka ah ee kala duwan iyo maamulka dawladda hoose ee degmada Garbadadar isku soo wada duuba mas'uuliyiintaasi ayaa kala qayb galay shacabka iyo labeenta magaalada Garbadadar munaasabada loogu talagalay xarika jarka cusbitaalka guud ee degmada Garbadadar barbilow waxa hadalka furay gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbadadar ahna kusimaha gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Cabdi Yabaal الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxa salaam iyo hambalyo qaaliya mudan waftiga ballaaran ee wasiirka caafimaadku ugu horeeyo xildhibaanka gobolka iyo degmada Garbadadar barasaabka gobolka iskuduwaha caafimaadka iyo dawlad aaneed dhaqtarlaaneed way lagu soo badnayd waxa weeyaan hooyo laga qaado halkan oo Hargeysa Buurama Jabuuti loo walqiyo way lagu soo badnayd oo dhexda la ilaaho way ku geeriyootay maanta waxaan la sii helay dhaqtarkan oo dadka degmada Garbadadar iyo Soomaaliga yaalo uu samaystay waxa weeyaan meel fiican wasiirku maanta uu ku arkay geestooda qaar ka mid ah oqaasha iyo waxgaradka magaalada Garbadadar iyo xubno ka tirsan gudida gacanta ku haysay dhismaha cusbitaalkaasi oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen awalan ilaahay baa mahadle ilaaha sitibay ficilkan inana sitay kale maanta halkan baan mahad celinayaa marka labaad waxaan mahad celinayaa dadkii ficilkan la yimiday ee uu hogaaminayay Suudaanka guud Suudaan Ismaan Ducaala Birir ee suurtageliyay juhdiga muruq iyo maal iyo maskaxda ku bixiyay in dhaqtarkan maanta halkan uu soo gaaro waanu mahad celinayaa waxaan mahad celinayaa oo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ka jawaabtay intii horeysay baahiyaha oo suurtagelisay dhaqtarka qalabka dhex yaala iyo waxyaalo kale oo badan waxa weeyaan walaalaha hamiga keenay iyo walaalaha ku soo garab galay iyo kor qaadista kuwa lagu sameeyay ilaahay baa mahadlay intaas maanta waxa weeyaan waxaan mahadnaqaynaa waxa weeyaan caafimaadka wax loo dhigaa ma jiro waxa raacay waa biyaha labadaas ay noloshu tahay ilaahay baa mahadlay isbitaalka kulli waxa dhistay bulshada ka soo jeeda degmada Garbadadar dal iyo dibadba iyaga u tabcay oo hormuudka yahay sida la sheegay Suldaan Ismaan Ducaale aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hawl badan bay ka qabteen dawladda kulli wixii dhiman oo baahdi ilaahay raay iyadoo way arkaysaa baayaha dawladdu way farabadan yihiin waxba u tilmaamay in oran mayna halka dhiman iyo halka dhiman kulli xukuumaddu wax qabadka wax badan bay dalka ka qabato caafimaadka ay ka hirgelisay dhakhtarka danta guud ee Garbadadar oo ku faraxsanahay waayo baahidii ay u qabtay Garbadadar aad buu buuxinayaan oran karaa marka ma sha Allah baan hadalkayga sii badinayn ma sha Allah mabruuq baa leeyahay reer Garbadarna ka faa'iideysana soo dhaweeyaan baa leh salaam aan wax yar ka sheego dhakhtarka lacagta ku baxday 180 ilaa 200 oo kun oo dollar weeyaan lacagta ku baxday lacagtaas wax qalab oo halka yeelay dawladdu ku darday lacagta cabaanka ee dhakhtarka lagu dhisay wuxuu ka yimid jaaliyada halka u taala ee ilaahay ku abuuray dal iyo dabadba ee uu horeeyo hormuudka ka yahay Suldaanka guud Ismaan Ducaala Birir ugu dambeyn waxa iyaguna dhankooda hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta heer gobol ilaa heer qaran ee madashaasi iyaguna ku sugnaa
waxaana hadalladoodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم أولا إلهي يا محمد سورة قليها هلكن مانتنا سورة لبعضنا وانباع فرنا اسبتالكن مرلبات كو عصور ويلي يا وفتو وقابل وزيرك وزارة وعمرنت عافماتكو دكتور حسن يا جاسمها قود يا وفتو وكلا وزارة كالسعودة يا سورة ويلي يا يقرأ الله كسو دوالي بدل كيسري كسو دوالي قدمي ببادة كسو دوالي الباب كي يقدر يقرأ كالسلام انت عمرك لغا سوح اللي تعالى يا دماء وقاسة يا دكا كلا يا شرك كان يسألني انت وان كسو دويني يا مرشا انت aniga maanta farxad gooniga ay tahay maalmaha ay iga duwan tahay waayo sababta aan ma jirin aniga qalaal oo tadbix xalay laakiin maanta waxaan joognaa wada horumarka laga shaqeynayo oo gacmaha la isku haysto oo wanaag laga wada shaqeynayo ka wasaaradahaana annagu maanta waxaan xaggan u joognaa inaanu bulshadii baahidii ay qabtay aanu mataqaanaa u daafeydno oo u furno insha Allah cid ka faa'iideysanaysa waxa noqonaysa bulshada oo dhakhtarkani insha Allah wuxuu noqon doonaa mid baahida weyn ee jirtay ka jirtay degmada kaafiya dhakhtarkani runtii waxa uu hormuud ka ahaa bilowgiisa iyo dadaalkiisa iyo juhdigiisa iyo iskaashatadiisaba in halkan uu soo gaaro waxa hormuud ka ahaa bulshaweynta uu hogaamiyo suldaanka guud suldaan cismaan ducaale dirir isbitaalada degmooyinku muhiimad gaar u leeyihiin gaar ahaan degmooyinka caynkan oo kale ah ee meel aan la soo gaari karina ee meel ay ka dheer yihiin cusbitaaladii gobolladuya in cusbitaalkaasi shaqeeya muhiimad weyn bay noo leedahay mar walba iyada oo la eegayo waxaynu hayno iyo waxaynu awoodno xaaladda dadku maanta waxay xilligan u taagan yihiin waa muhiimadda uu leeyahay cusbitaalkan aynu maanta waxaan marka hore u ducaynayaa dadkii ilaahay ku ilhaamiyey inuu cusbitaalkan suurto galo oo ugu horeeyo suldaan cismaan ducaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale idiin sheegayaa reer gabadada xildhibaan wanaagsanna waa leeyihi barasaab wanaagsanna waa leeyihi labaduba qoobkay lagaga taagnaayeen labaduba cusbitaalkaasay ka hadlayeen labada midda kamaanaan fadhiisanaynin inaanu nimaadnona oo waqti ka horreeya aanu nimaadnona aad u degdegsanayo maantaasaa la ka dhigay waxaanu saaka ballan qaadaynaa horta dhakhtarkii halkaa iman lahaa ee gabadhii jeexnin loo geyn lahaa ama boorame ama hargeysa loo geyn lahaa ama jabuuti loo geyn lahaa halkaa ku qali lahaa inaanu annagu kharashkiisa bixinno degaankuna uu doono qof ogol inuu halkaa uu joogo wadaba isku geeyo 13 bishii Juun 2019 ayay ahayd markii la dhagax dhigay dhismaha cisbitaalka guud ee degmada Garbadadar waxaana si rasmi ah xadhiga looga jaray maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha Maaris 2022 cisbitaalkan oo ay si weyn ugu baahnaayeen bulshada degmada Garbadadar ayaa waxa soo dhisay oo maalgeliyay qurba joogta ka soo jeeda magaalada Garbadadar ee ku kala sugan dunida dacaladeeda ومصطفى حسين عبدي مصطفى قربو وركة تلفزيون كهريال مقالة قربة ضر